بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن دمانتي بميل والبواد دنيا كجوكتا waxaad ku soo dhawaatan wararkii ugu dambeeyay caalamka qodobada ku daawadootana waxa kamid ah duqeymo culus oo lala beegsaday qaar kamid ah wadamada Carabta Kuwait ayaa gubanaysa wararkii ugu dambeeyay ayana soo qaadan doon hadii la ka dhigo hanjabaad culus oo loo jeediyay dawladda wadanka Iran hanjabaadaas Hindiya ayay ka imaanaysaa madaba barnaamijka ku soo qaadan doon hadii la ka dhigo dawladda wadanka Ruushka oo reer galbeedka dagaal culus uga hanjabtay waase hadii laga joogsana hal qodob wasaaradda arrimaha dibadda wadanka Ruushka soo xigi doon hadii la ka dhigo dawladda wadanka Mareykanka iyo militarigeedu xaalad quus ka taagan weerarada jamhuuriyadda Islaamiga ah Iran ay ku qaadayaan militariga wadanka Mareykanka reer galbeedka iyagu nashada la'aan iyo gaasraan ay soo fod saartay qaar kamid ah wadamada Carabta oo bixinaya lacago baada dunidu way ololeysaa Mareykanka iyo Israa'iilna dab ayaa suran Urdun ayaa kamid ah goobaha dambaska laga dhigay barnaamijka ku soo qaadan doona hadii laga dhigo abada maasantina soo dhawaada hadii ay tahay markii kugu horeyso aad soo booqato fadlan ilaa way subscribe-ta waxa markii ugu horeyso u duuciye dalkana Soomaaliya Allah ka dhigo kan ugu xoog badan uguna dhaqaalaha badan qaaradda Afrika dhibta Allah inaga dulqaado dadka muslimiinta ah ee mujrimiinta iyo munaafiqiinta iyo gaaladu ay xabsiyada ku cadaabayaan Ilaahay ka soo siidayo dambigooda la dhaafo eheladooda samir iyo iimaan qalbiga Allah ugu shubo dadka Soomaaliyeedna ul iyo diirkeeda Allah ka dhigo meel walba dunida ka joogtaan haydin wacanaato gorsheegtadu aan ku hormarnay markii ugu horeysa dagaalo culus ayaa ka soconaya gobolka bariga dhexe militariga wadanka Mareykanka ayaa wali isku dayaya in ay xoog ku maqoonayaan xogaga jamhuuriyadda Islaamiga ah Iran dhowr saldhig oo ay leeyihiin militariga ilaalada kacaanka wadanka Iran ayaa lagu weeraray siday weeranayaan warbaahinta maxalliga laakiin wasaaradda difaaca ee jamhuuriyadda Islaamiga ah Iran iyo ilaalada kacaanka ayaa sheegay in militariga wadanka Mareykanka ay ku guuleysan waayeen inay duqeeyaan caasimadda jamhuuriyadda Islaamiga ah Iran waxay wariyeen ilaalada kacaanka duqeyn kasta iyo isku day kasto la isku dayay lana doonayay in lagu duqeeyo xarumo militari ku yahay caasimadda wadanka Iran waa laga maagay sida ay hadalka u dhigeen waray soo saareen ilaalada kacaanka wadanka Iran inkastoo la warinayo koonfurta wadanka Iran dhowr askari ay ku dhinteen duqeymo ay qaadeen militariga wadanka Mareykanka haddana ilaa iyo hadda khasaaraha dawladda wadanka Iran ay u gaaray meelaha qaarad ayuu yar yahay inkastoo qaar kamid ah salagyada wadanka Mareykanka iyaguna ay ololayaan ilaalada kacaanka jamhuuriyadda Islaamiga ah Iran ayaa warinaya in diyaaradda la yiraahdo MQ-9 diyaaradaasi waxay kamid tahay diyaaradaha ugu qaalisan ee dawladda wadanka Mareykanka $35 milyan ayay joogtaa mid kasto iyaga kamid ah waxaana ay sheegeen diyaaradahaasi oo ku soo wajahna markaa inay weeraraan doonayay caasimadda jamhuuriyadda Islaamiga ah Iran ayaa dhulka la soo dhigay sida ay warinayaan mas'uuliyiin salsare oo ka tirsan ilaalada kacaanka wadanka Iran haddii aynu eegno militariga wadanka Mareykanka ilaa iyo 25 diyaaradaha dagaalka ah ee dawladda wadanka Mareykanka ay leedahay oo markaa ka duulay mid kamid ah maraakiibta ugu waaweyn ee wadanka Mareykanka ee badaha caalamiga jooga ayaa isku dayay weerar inay ku qaadaan wadanka Iran hase ahaatee darbaaxo adag ayay kala kulmeen ilaalada kacaanka waxaana la gurinayay diyaaradahaas iyo maraakiibtii sidoo inay dib u soo carareen Imaaraadka Carabta iyo wadamada Kuwait iyo Bahrain salagyadii dawladda wadanka Mareykanka ay ku lahayd ayaa ololaya ka gadaa markii weeraro degdeg ah oo markaas ay qaadeen ilaalada kacaanka jamhuuriyadda Islaamiga ah Iran qaar kamid ah muxalliliinta gobolka ayaa warinaya in militariga wadanka Mareykanka ay hadda xaalado culus soo food saareen iyadoo maalinba tan ka dambeysana Mareykanku ay wajahayaan laba dhibood midkood labada mid waxa weeye in dawladda wadanka Mareykanka gantaalada ay ka sii dhamaanayaan dhibaatada kale ee haysata militariga wadanka Mareykankana waa in nidaamka difaaceedyadii la isaga difaaci lahaa gantaalada dawladda wadanka Iran ay sii dhamaanayaan muxalliliinta qaarkood ayaa warinaya in madaxweyne Donald Trump ay jar cajiib la ciyaarayso ilaalada kacaanka wadanka Iran waxaana la leeyahay Iraaniyiintu dagaalka Koptoliska ah ama kolaytanka dhibaato badan kuma qabaan laakiin diyaarada drones oo ciida ka badan ayaa mar quray ku weerarayaan salagyada militariga wadanka Mareykanka Bahrain Urdun Kuwait Jordan isutag Imaaraadka Carabta iyo goobo kale oo qarsoodiye ku yaala wana mid keentay sida la leeyahay in saraakiisha ugu sarsareysa militariga wadanka Mareykanka hadda ay walwal muujinayaan maraakiibta dagaalka ku sugan Mareykanka uu leeyahay ee badaha nimanka Carbeed ee caloosha u shaqeystayaasha ah ee xijaabana joogan ayaa iyaguna dhibaato wajahaya bal xitaa waxa la warinayaa goobtii sahnada militariga wadanka Mareykanka ugu weyneed oo ku tiilay wadanka Kuwait in cadaadugaha laga dhigay dekada la yiraahdo Abdullah ee ku taal wadanka Lebanon ayay ahayd sida la leeyahay goobtii ugu ballaarnayd ee militariga wadanka Mareykanka ay ka helayeen sahnad militariga dagaalka ku galaan ilaalada kacaanka oo si wanaagsan u bartay goobaha yeel ukumaha dawladda wadanka Mareykanka ayaa dukum daakum ka dhigay waan ku soo laaban doonaa hadii warar degdeg iyo barnaamijyo kale ku soo kordhay bal markan Ukraine geeya
afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda wadanka ruushka gabadha la yiraahdo Maria Zakharov ayaa warisay in wadamada reer galbeedku ay isku diyaarinayaan in Ukraine gantaalo xalis ay siiyaan kuwaas oo qorshuhu yahay in lagu weeraro gudaha wadanka ruushka laakiin gabadhan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda wadanka ruushka ee la yiraahdo Maria Zakharov waxay leedahay haddii wadamada reer galbeedku ay go'aansadaan in Moscow ay weeraraan idinkuna ma nabad geli doontaan inkastoo in badan dowladda wadanka ruushka idinku dul qaadanaysay haddii saad gantaalada reedida dheer siisaan Ukraine oo gantaaladaas ku soo dhacaan gudaha wadanka ruushka waleeba ku dhaartay waxay yiraahdeen caasimada reer galbeedku ay ololi doonaa afhayeenka ayaa sheegay in wadamada reer galbeedku laba go'aan miduna ay qaataan inay si dhab ah banaanka u yimaadaan oo ay markaas dagaalka dowladda wadanka ruushka ay la gelayaan ay si dhab ah u sheegtaan haddii aanay arrintaasi awoodin Ukraine waa u dhamaatay inay faraha ka qaadaan dhinaca kale madaxweyne Donald Trump uu isagu 24 saac la soo dhaafay si weyn u sheegay in dowladda wadanka ruushka wada hadal diyaar u tahay inkastoo uu leeyahay ruushku way daaleen laakiin haddana aqalka Kremlin-ka dowladda wadanka ruushka laga maamulo lagama jawaabo inta badan hadallada malayacniga ee ka soo baxa 70 sano jirka waalan ee Mareykanka maamulaya si kastoo ay ahaataba waxaa la wariyay Ukraine xaaladeeda marka ka dambeysay aad u liidato inkastoo shirkii ugu dambeeyay hadda NATO la siiyay ilaa iyo lacag $700 milyan oo dollar ka badan iyo taageero military ahaatee wadamada reer galbeedku hadda iyaga ayaa wajahaya dhaqaale la'aan iyo sidoo kale ciidanka wadamada reer galbeedka oo iyaguna marka ka dambeysa ee dhinaca teknolojiyadda marka laga eego aad u liita inkastoo la wariyo dowladda wadanka Turkiga hadda inay tahay murashaxa ugu wanaagsan ee maamuli kara wadamada NATO la isku yiraahdo haddana Jarmalka iyo Faransiiska iyo Greek lama tuso dowladda wadanka Turkiga saacad kastana waxay ka fikirayaan sidee u majiran habaabin lahaayeen maamulka dabadhelifka Erdogan uu hogaaminayo ee hadda Turkiga ka talinaya isku soo wada duub waxa la leeyahay jar cajiib ayaa la ciyaaraya wadamada reer galbeedku hadda benziin iyo sidoo kale gas iyo shidaal wax u gudbaya ma jiraan ilaalada kacaanka wadanka Iran albaabada ayay u laabtay gacanka gacsiga caalamiga garan shidaalka iyo gaaska ay maraan ee Hormuz la yiraahdo tan markii dagaalku dib u qaraxay 10 markab oo ay qaar kamid ah dowladaha khaliijka intooda badan ay leeyihiin ayay dhulka dhigtay ilaalada kacaanka kuwaas oo isku dayay intay ka dhiga adeegaan amarka ay bixinayeen xogaga geesiyaasha reer Iran dhinaca kalena u dhigan nugul maleeshiyada Mareykanka ee doonayo in halkaas xoog ku marsiyo maraakiibta ganacsiga markab kasto isku dayay inuu ka dhiga adeego amarka geesiyaasha ilaalada kacaanka jamhuuriyadda islaamiga ah daqiiqad kadib waa holciya waana sababta keentay in militariga wadanka Mareykanka ay ku fashilmaan hal markabna la ka dhigay inay mariyaan gacanka Hormuz wadamada reer galbeedka qaarkood hadda buuq iyo muran badan ayaa u dhaxeeya qaarkood waxay leeyihiin wargoonaya dowladda wadanka ruushku aanu saaxiib la noqono si aan u helno gas iyo shidaal raqiis ah maadaama gobolka bariga dhexe dagaalkiisu uu sii xumaayo marka laakiin qaarkood ayaa si weyn u diidno Jarmalka iyo Faransiiska iyo UK ay kamid yihiin qaarkoodna xulafo ayay leeyihiin Hungary ayaa kamid ah wadamada reer galbeedka ka tirsan haddana shidaalka iyo gaaska dowladda wadanka ruushka ilaa iyo hadda si dhaba u helaya Ukraine marka waxa la leeyahay xaalado culus ayay wajahaysaa dhan kasta marka la eego wayna sii ba'an tahay sida xaaladda Ukraine sheeko kale oo cajiib ayaa iyana jirta sida ay warinayso warbaahinta sida ay warinayaan maraakiib dowladda wadanka Mareykanku ay leedahay 6 markab oo ay leedahay dowladda wadanka Shiinaha ayaa la warinaya in lagu arkay xeebaha fog ee markaas ay gobolka bariga dhexe Shiinaha ayaa la sida leeyahay maraakiibtaas waxaana isku diyaarinayaan sida leeyahay caawinaada ciidanka ilaalada kacaanka wadanka Iran qaarkood waxa lagu arkay goobaha khaliijka qaarkood waxa lagu arkay sida xeebaha wadanka Philippines halkaas oo iyaguna ay fadhiyaan dowladda militariga wadanka Mareykanka ciidan ay leedahay maraakiibtan dagaal oo 740 sida leeyahay dowladda wadanka Shiinaha ay leedahay ayaa u soo ruqaansaday dhinaca iyo gobolka bariga dhexe waana la arki doonaa ujeedada rasmiga ah laakiin hadda waxay soo marayaan sida leeyahay koonfurta badda wadanka Philippines wala arki doonaa waxay ku soo koray laakiin waxaan moodaysaa dowladda wadanka Shiinaha iyo Ruushka iyaguna isku diyaarinayaan si ay markaa nin kasta saaxiibadiisu ay u guuleystaan inkastoo Ruushka iyo Shiinuhu washiyada ka daawanayaan inkastoo la leeyahay Iran 48 saac la soo dhaafay ilaa iyo 200 saac la soo dhaafay sahanad milatariyo culus oo ka timaatay dhinaca iyo Shiinaha ayaa gaartay sida la leeyahay laakiin Mareykanka laftirkiisa qaado qabow ma aha wuxuu isku diyaarinayaa in dowladda wadanka Shiinuhu uu ka hor istaago hadii Allah ba ku raayahay in ay gaarto marka gobolka bariga dhexe
wasiirka maaliyadda maleeshiyaadka burcadda ah Somostrich ninka la yiraahdo ayaa wuxuu leeyahay haddii dowladda wadanka UK ay Falastiiniyiinta daraadoodii cunaqabateen noo saarayso arrintaasi waxba kama jiraan meeshan wax Falastiin la yiraahdo ma jirte run ma isu sheegna amarka anaga naga qaat ayuu leeyahay waan runtiis meeshaas oo dhan xogaga maleeshiyaadka burcadda ayaa ka taranay wixii ku soo kordhay waan isla eegi doonaa haddii alla ka dhigo qaar kamid ah wadanka la yiraahdo Colombia oo safaarad ka furanaysa qudusada la leeyahay Colombia waxay kamid tahay iyadana wadamada sida weyn ugu dhow maleeshiyaadka burcadda laakiin ilaa iyo hadda arrintaas ay si weyn warbaahintu uma muujina waxay ku soo kordhay wararkan waan isla eegi doonaa haddii alla ka dhigo aad baad u mahadsantihiin saaxiibada iyo dimintaan u kulma doona mar kale nabadgelyo